kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba daawadayaasha qiimaha iyo qadarinteena mudan oo meel kasta oo aad joogtaan iyo si waliba noo daawanaysaanba waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wacyiga bulshada oo toddobaad walba xiliyadan oo kale aad ka daawataan telefishinka Somali News. daawadayaal toddobaadkan barnaamijku wuxuu idinkaga imaanaya magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan waxaana barnaamijkeeda la socodsiin doona anigoo qaaradilka Casa. daawadayaal toddobaadkan barnaamijka wacyiga bulshada waxaynu martin ugu ah isla markaana aynu ku wareysan doonaa gudoomiyaha hore ee gobolka Hiiraan Cumar Aadan Ibraahim Cumar Baadiyo waxaana toddobaadkan gudoomiyaha ka wareysan doonaa marka hore taariikh nololeedkiisa iyo sidoo kale waxyaabihii uu ka soo qabtay gobolka Hiiraan muddadii uu ahaa gudoomiyaha gobolka iyo sidoo kale xilliga uu ahaa maayarka magaalada Beledweyne. markale daawasho wacan barnaamijkii wacyiga bulshada toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. marka hore waxaad ku soo dhawaataa telefishinka Somali News barnaamijka wacyiga bulshada. وما ستين اللي معنا وصل واحد. gudoomiye marka hore waxaad faahfaahin naga siisaa bal taariikh nololeedkaada anagoo ka wareysan doona muddadii gudoomiyaha gobolka aad ahayd maayarka magaalada Beledweyne waad soo noqotay gudoomiyaha gobolka ayaa soo noqotay intaan u gudagelin waxqabadkii xilligii maayarka magaalada aad ahayd iyo gudoomiyaha gobolka oo aad muddo 3 bilood aad soo noqotay barasaabka gobolka Hiiraan intaan u gudagelin taariikh nololeedkaada oo kooban. Cumar Aadan Ibraahim Cumar Baadiyo waa kuma. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتبركر واديك مع العلنية سبعان نجس هذه هذيك مع العلنية ورئيس غيره ومتقنع إلى يارتين. أنا ترى مولود بركة الشكاية وحاول عشان أكون سجال بقول إحدى الكودي مقالة بلدوين حافظ بندوين أنا كل شيء. الدكتور قراك الدكتور مقالة بندوين أنا قبل لابي مع الحسين مقال اللي هذا يا معلم يا هجري. كل سجال بقول إحدى كورس قال بالحدة كودي بريم سكول بندوين اللي جاي وحبرسيد بيشتها قصاقاتي رنتي بلد وقالة بلدوين أوقاتي نحن حراضي دكتور عافماتك كبعدين متقنا وخالد حق كانت وسخيناي أنا يو عدنا وحنا هذا متقنا إيش والسرد متقنا جايد كقرنك عافاتك وسخيناي wasaaradda markaan ka tagay runtii ciyaartooyna waan ahay aniga xaafadda Bunduweyn aan u ciyaari jiray kubadda kolayga gobolka wali uma safar laakiin Jenya ayaan mataqaanaa tababar u galay runaantiina waa tababarkaas baan dhamaysan waan ka tagay oo business as ka galay 1979 markay tahay mataqaanaa waxaan u tahriib amal aan u adeekeeyo ka bacdina business ayaan sameeyay ilaa ganacsi ah Nairobi iyo Muqdisho inta u dhaxayso muddo ah soo noqodkeygii markaan imaaday waxaan u shaqo bilaabay hay'adda la yiraahdo Arju qaxootiga caafimaadka Soomaaliya 87 ilaa 2 sano u shaqeynaa meesha qabto markay ka dhacday meelahaas ka sii aaday ka bacdi burburka Soomaaliya markay yimideen waxaan qabtay sportka gobolka Hiiraan oo dayacnay runtii soo kiciyay muddo 15 sano waa hogaaminayay sportka gobolka Hiiraan kadibna waxaan aaday Addis Ababa oo qoladii maxaakiimta xisbi shaydaanka ayaa mataqaanaa raacsaday halka markaan aaday waxaan ku soo laabtay wadanka magaalada Muqdisho waxaan shaqo ka bilaabay oo la soo magacaabay duqa magaalada Beledweyne runaantii xilliga waxay ahayd
waxaan adiga 4 sano ayaa mataqaanaa duqa magaalada ahay 4 sano wax weyn ka qabano magaalada jidad badan oo mataqaanaa lagu faani karana waa sameynay jidka isku xira Eelaboorka iyo magaalada jidka isku xira Sabadcaana iyo magaalada baawarta mataqaanaa waxay jiri jirtay dhibaato weyn oo maadaama walaalahan heel walaal iyo mataqaanaa ay degiyihiin ciidamada walaalahan Itoobiya laamigi ayaa problem waxa ku qaban jirtay roobarkooda inuu jidkaas go'o runtii jid toos baan u sameeyay baawarta dhacnameelyaasha baawarta weynka ay ku soo galay xamuulka magaalada soo galiyo isku xira wadada dheer Gaalkacyo iyo Beledweyne waxa kale oo qabanay suuqyada magaalada sida suuq weyn oo Buundweyn Sportivo kan Xawataako kan mataqaanaa Holudaag waa xilligii maayarka magaalada markan ahay waxaan kale oo qabanay meelaha bulaacadaha magaalada biyaha ka gali jireen wasaqda webiga uu soo jira roobarkooda oo magaalada dhiiqa wada noqon jirtay ilaahi waa u furnay buundo weyn oo tartaranta buundada hadda waa aragtay hotel Hiira ka soo horjeedo aqoon ku soo saarnay meesha buundo inay ku jirta xasuusanay buundadaas waa ku guuleysanay si fiican oo waqajin hadda si toos ah u shaqeysaa waxa kale oo shacali jamcaan mataqaanaa xasadiif iyo inta u dhaxayso gobolka gadaashiisa ilaa ku jiro ilaahina waa furnay waana sameeynay ayadoo halkaas oo biyo xireen weyn ahaa jirtay sidoo kale masaajidka bardaha kale biyaha ka gashay ku jirtay waa furnay ayadana waxaan qabanay waxyaalo aad u fara badan runtii wadooyinka waxa kamid ah wadada weyn hadda isku xirta mataqaanaa boondada iyo argada oo shamiito laga dhigay oo harjidkeeda badan mataqaanaa ay dadweynaha naga kaalmeeyeen dad dibad meesha jiraan runtii reer jaaliyad reer Hiiraan ragaas baa naga kaalmeeyay lacag $15,000 keeneen yaa dhisay marka wadada maamulka wuxuu bixiyay $24,000 qoladan mataqaanaa dukaamada leeyahay maxay bixiyeen $19,900 dadka mataqaanaa muxsiinta oo wadada sadaqaystana waxay bixiyeen $15,000 wadada intaas lagu dhimay $1,500 waxa isku laabanayna baqaarka musbaxan wala runaantii wadadaas waxa lagu dhisay sidaas lagu dhisay aad iyo aad mataqaanaa loogu dirsaday hadda waxyaalo yar ka dhiman ayadana waa la meeshtiri doonaa insha Allah taala waxa kale oo qabanay ogsantahay wadadan dheer isku xirtay janta ku dishay magaalada roobkii sida yeelan waa aragtay mar baawur oo ku dhacay wadada kala gooy waa dhisnay dumaarka markaan tahay ay fushowsas markii dambe biyo baxadana wax markay furfureen hadana waa aragtay waa idana dib loogu laabtay shaqadeeda hadana waxaa qabanay waxyaalo aad u fara badan marka maayarka ahay runtii magaalada wax badan aan ka qabtay markii dambe waa taan mataqaanaa gudoomiyaha gobolka aan imid gudoomiyaha gobolka markaan imidna mataqaanaa ii sheeg waxa dhacday magaalada waa garan karteen ama sida ahayd qabiil kastaba meel wixiis ku guranay dhaqaalaha yarka magaalada lagu gargareeyo oo maamulada iga horeeyay mataqaanaa isku keenay waayeen waxa isku keenay anaga mataqaanaa qabaa'ilada magaalada degnay inta hadda dhismaha wadooyinka soo gala magaalada aad sameyseen waa xilligii maayarka magaalada waa gartay markaan ka soo gudubno shaqooyinka aad soo qabatay xilligii maayarka magaalada aad heeday muddadii aad gudoomiyaha gobolka aad ahayd waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee aad gobolka aad ka qabatay maxaa noogu sheegi kartaa والله هو horta muddo kooban baa joogay 3 bilood iyo 20 casho joogay gobolka oo gudoomiye ka ahay problem badan waa la kulmay oo koow ay ka tahay dagaal sukayo ka dhacay meel la yiraahdo Baayaaley laba qabiil oo walaalaha meesha isku dagaashay taas iyo mataqaanaa problemka kale ugu weynaan wuxuu ahay magaalada kala qaybsaneed runtii oo mataqaanaa qabaa'il kasta oo magaalada degan wixiisu dhinac u guranay waa dhanka dhaqaalaha oo dagaal sukayo waxaan isku dayay inaan bulshadaas ku furfuro inaan hal meel ka dhigano oo hal meel aan nahay oo hal magaalo aan wada deganna oo hal doon aan wada fuushana runtii waa u mahadcelinaa sida fudud ay mataqaanaa iyagu nugulaadeen aad iyo aad ugu mahadcelinaa dadkaas maantana magaalada 3 magaalo joognay laakiin hadda maanta hal magaalo waa dhaqaaleed hal meel ku soo ordaa oo ku soo aruuraa wax kasta oo mataqaanaa maanta si kumantan oo mataqaanaa isku xiran ayaa loo shaqeeyaa wax tafaraarq ah jira ma jirto
maamulka oo dhan waa isku midaysan yihiin waxa dhan oo mataqaanaa si kasta oo wax loo qabto hal mar la isku wada tashtaa aad iyo aad mataqaanaa taas aan ugu guulaysto aan ku faani karaa runtii maanta in isku keeno dadka magaalada ku dhashay oo dhaqaalooda hal meel inay ku soo aruursadaan ay tahay oo horumarkooda iyo mataqaanaa fikradooda ee horumareed ay ka shaqeeyaan waana ku mahadsan yihiin intaas inay kasii badiyaanna waan rajaynayaa insha allahu tacaala ayadana dhaqaalaha aad tilmaantay muddadii aad guddoomiyaha gobolka ahayd inaad isku keenteen oo hal meel lagu wada shubay yaa qaadan jiray lacagaha markii hore waa ku sheegay qabiil kastaba dhinac loo guray dadka madaxda maamulka tirsan ama dhinac kasta madaxda maamul kasta oo madax oo yaa jooga meesha masal qabaa'ilada meesha hadda waxa lagu joogaa sidii mataqaanaa la isku keenay dadkan maamul kasta qabiilkiisa oo gadaal u aaday oo isbaaro mataqaanaa amal oo ka dhigay lacagta asaa qaadanay kan isheego mataqaanaa nin kasta oo maamulka ka tirsan qabiilkiisa u aaday oo wax kala qaadanay marka wixii waa laga joojiyay hal meel isku soo wada shubay oo dhaqaalihii halkaas tuuqa naga wada dhexee yaa ummadda maxaa dhibaatada haysatay dadka waxa ka mid ah baabuurkii huludaha ka soo gudbo ayadoo lacag $250 laga soo qaadayo oo haddana marka uu tago mataqaanaa dhankan uu soo gudbo oo $350 laga qaadayo baabuurka kaliya magaalada $600 oo baabuurka ku baxaya ama ku soo galaya marka tii waxaan ka dhignay anaga $350 boorada looga soo gooyo meesha la yiraahdo Kalabeer inuu ku gudbo meesha la yiraahdo Howlwadaag tan Howlwadaag laga soo gooyay inuu ku gudbo Kalabeer oo hal magaalo inaan joogno aan ogaano dadkana la cadaadin ganacsigana mataqaanaa dadka waa mataqaanaa $600 meesha laga qaaday $350 aan ku soo korno baabuurka reer marka annaga u dareynayna dadkaayno iyo bulshadaayno ayaa waxaan isku wada tashanay inaan hal sanduuq yeelano lacagtaas faraha badan oo dadka laga qaadayna oo masaakiinta ah oo maanta jeebkooda aan ognahay in lagu soo daboolo $350 inuu ku bara meesha baabuurkaas sidaas ay mataqaanaa annaga maamulkaaynu ku gudrinay sidaas odayaashu kula tashanay sidaas mataqaanaa waxgaradku kula tashanay waana naga yeelay runtii waana ku mahadsan yihiin taas intii aad ku howlaneed isku keenida ama mideynta dhanka maaliyadda ama dhaqaalaha ma jiraan wax caqabado la aad iyo aad caqabado badan la kulanay caqabadaha la kulanay waxa ka mid ah isla markii aan joogno horta waxaa baxay mataqaanaa credit badan aan galnay runtii anaa ku sheegay dagaalkii baanyaalay problemka lacagii dhacay problemka siyaasadda Hirshabeelle timid wax badan aan mataqaanaa isku yimid meesha wax oo mataqaanaa aad iyo aad credit badan soo marnay runtii laakiin waa u dhawr adeegno waxaan ka dhignay wixii sidii looga gudbi lahaa insha Allah tacaala waana ka gudubnay marka taas aan mataqaanaa ayada noo sahashay insha Allah marka laga yimaado mideynta dhanka maaliyadda muddadii aad guddoomiyaha gobolka ahayd ma jiraan waxyaabo kale oo la dhigi karo xilligii marbaadiyo guddoomiyaha gobolka ahaa ayuu shaqadan ama waxyaabahan la qabtay wallahi waa kulli wixii la dhigi karaa ma taqaanaa runtii markaan sheegno 3 months sama 3 bilood wax lagu qaban karo ma jirin waa garan kartaa tana waxba nagu noqotay culayskii soo maray waxa ka mid ahay dagaalkii baayoolay 20 casho ayaa ku mashquulsanay tii lacagaadana sidoo kale tii siyaasadda Hirshabeelle sidoo kale de 3 bilood waxa la timid taqaanaa credit ay baa tusat dhibaatadaas sheeg wareegana ayaa wax uu guuleystay haddana waxa inaan isku wada tashano oo u dhabar adeegno isku keenno marka problem kale oo ribaanin waa siibid marka waxa waaye waxaas oo dhan wax la qaban karo ma jirto laakiin waan damacsaneen inaan mataqaanaa anaga 3 warxaad mataqaanaa u ballan qaadnay markaan kow amniga inaan ka shaqeeyo the first one ay ahayd bulshada reer Hiiraan isku keeno iyo wixii horumar ah waxbarashada caafimaadka iyo mataqaanaa everything qorsheyga aan ku darsado saddexdaas markaan helo ayaa waxaan taabo lahay boosishka maanta gobolka ugu wargaray lahay saddexdiina waxaa ii suurtageli waysay runtii creditadaas aan soo marnay laakiin waxaa ii furan kaalinta ugu weyneed oo isku aaminada ahayd waxa la isku aaminaa waxa waaye dad Soomaalida maanta waxa waa dhaqaalo wax la yiraahdo dhaqaale nidaam u sameyn wax isku disho Soomaalida dhaqaale ka mid ah
qabaa'iladii isdagaalsanaa xabad isku jeeda inay isdhex maraan maanta beledweyne oo mataqaanaa qabaa'il u gudbi jirana jirtay laakiin hadda maanta waa isdhex marayaan waa alxamdulilah waa midda aan dhihi kara mataqaanaa horumar ka gaartay ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inay maskaxdooda si fiican u sii shaqayso ay reer hiiraan isku xirmaan ay tashtaantooda ay mataqaanaa ay had iyo jeer ay ka fikiraan maxaanoo dan ah aysan ka fikirin maxaa ii dan ah taas ayaa mataqaanaa ku rajaynaya insha allah tacaala waa gartay marbaadiyow waxaad sheegtayna muddo 3 bilood ah barasaabka gobolka ama gudoomiyaha gobolka soo ahay waxaa lagu eedeeyay xilka qaadista salka ku haysan madaxweyne Cosoble oo ay baarlamaankiisu xilka ay ka qaadeen in adigu aad taageertay ma la isdheey karaa والله dadka waxa waaye waa run oo mataqaanaa systemka aan mataqaanaa ninkan Cosoble waa madaxweynahana waxa waaye xilka waa laga qaaday baarlamaanka ofris xilka ka qaadeen waxa la rabay in la xakameeyo operationkiisa laakiin dawladdu inay soo dirtay mataqaanaa magaalada beledweyne ay soo fadhiisay madaxweyne mataqaanaa ani sababta ma ka qaaday waa soo dhaweynayaa cid ugu neclaad cid ugu jeclaalayd waa soo dhaweey wax alaal wuxuu rabana u sameeyay faant waana ugu waajib cid looga heebaysana taasna ma jirto sababtoo ah karaamadu uu leeyahay qofka bini'aadamka mas'uulka ah marka mas'uulka ka maxaad u karaamaysaa cid maanta ugu eedeynayso taayada mataqaanaa qoftaas غير mas'uul ah qabaade laakiin wax taageerana ma lihi xilli ku celi kara Cosoble xilli kama diji karo laakiin sagti wixii oo jiro waa sheegaya laakiin ma la isdheey karaa sababta xilka laga qaaday waa taageerada aad taageertay ma isma dhihi karo taas ma isdhahay runtii taageero laga qaadan xilka waxaan u aragnay waa layla tashtay ninka ugu horeeyo gobolka laga bedelo ayadoo mataqaanaa xil laga qaaday lala tashtay baan ahay ani waa gartay sidoo aragtaa marka maamulka cusub ee Hirshabelle iyo madaxweynaha la doortay iyo maamulkan cusub ee gobolka Hiiraan wallahi horta Soomaalidu waxay tiraa Marbaadiyo xilkaas hadda aad sheegaysaa looga qaaday waxa ugu duwanaan ku sheegay gudoomiyaasha gobolka hore anigoo warqadeeda la qorin oo madaxweynaha ila soo tashtay abtiyo xal baan arkaa saayala abti waxa ay wax li kartaa diyaaran ku ahay diyaar baan ku ahay meesha culays ka soo qabto inaan kala dejiyo kula shaqeeyo diyaar baan ku ahay xilkayga saasa mataqaanaa ku dhiibay anigoo raali ah ku dhiibay anigoo faraxsan ah ku dhiibay faant wax problem ama mataqaanaa sidaan u wareejiyay iyo wanaageedana wada arkaysaan haddiina waa la shaqeynaynaa haddaan xil haayo iyo haddaan hayn iyo haddaan la dhiibinba waxa iga go'an inaan la shaqeeyo horumarka gobolkan wax kasto inaan la shaqeeyo aniga waxaan noo danay inaan dadkaan u shaqeyno ayaga wax u barana ayaga mataqaanaa indho u nahay anaga waa horena u sheegay inaan wax alaal wax yimaado waa everything diyaar baan u nahay inaan ummadayna u adeegno qowsar u noqono diyaar baan u nahay qofka mas'uulka ah markii xil loo dhiibo oo muddo uu xil hayo marka laga qaado waxa jira waxyaabo bulshada marka qofka mas'uulka xilka laga qaaday ay ku xasuustaan Marbaadiyo ma jiraan waxyaabo shacabka reer Hiiraan ay ku xasuusan doonaan ee aad qabatay muddada xilkaas hadii aad haleed barasaabka magaalada iyo markii aad gudoomiyaha gobolka Hiiraan ahayd muddo 3 bilood ah ma jiraan waxyaabo reer Hiiraan maanta ay ku xasuusan karaan oo leeyahay Marbaadiyo ayaa qabtay waxyaabaha nooca muddada uu xilka ahaa haba yaraatee waxaan taariikh oo mataqaanaa Marbaadiyo qabtay la leeyahay aan ma garan karo laakiin waxaan aaminsanaa inaan shaqo badan oo gobolka ka qabtay degmada ka qabtay marka duq magaalaha iyo marka aan ahaynba iyo anigoo waxba ahaynba wax badan aan ka qabtay wali marka waxaan aniga waxba ahayn oo shaqo badnaayba faant oo xil hayn marka waxa waa magaaladan waa magaaladeedii in aan mataqaanaa wax u qabtana waa iga go'anta dadweynaha ayaga marqaati ka ayaga mataqaanaa inaan wax qabtay inaan wax qaban kulli ayaga marqaati ka taas laakiin aniga waxaan si daacad inaan wax ugu qabtay ayaan aaminsanaa laakiin meel hebla wax ka qabtay iyo waxaasaan qabtay waxa waaweyn oo hadda wadooyinkaas waxaas xataa hay'adaha naga kaalmeeyay waxaan lahayn codsigoodan lahayn waxbaan lahayn mooye anaga hadda dadkan lacag ka aruurin midda lacag ka aruuri waa $15,000 oo jidkaas aan ka aruuri bas
فهمت iyo lacag abaaro oo dadka aruurin waa jirnaa oo dad siinay laakiin waxaan aniga ma u garanayn mar u shaqeyneen in laga sheego si daacad oo mataqaanaa dadkayga inaan wax u qabtay ama wax u qabanay dadweynaha la weydiin doonto ayaga marqaad ka noqonaya insha Allah si loo gaaro horumar maxay tahay fariinta u diraysa marka bulshada mar haddii aad gudoomiyihii gobolka aad soo noqotay barasaabka gobolka aad soo noqotay reer Hiiraan waxaa u dirayaa runtii reer Hiiraan inay wada tashtaan isku maskaxda dib u fiiriyaan dad walaala waa reer Hiiraan haddii isdilaan ama waa isoo disheenbo wax idii hagaagay ma kala guurteen waa maya qabiil baabiye kalena ma jirto waxaan leeyahay maskaxda dib ugu laabtaan inay wada imaadaan wada fikiraan maxaa noo dan ay dhaxan ee wada tashtaan marka taas ayaa wax lagu gaari wada tashiya oo horumar lagu gaari karaa gacmo wada jir ay wax ku qabtaan Allah reer Hiiraan haday wada jiraan ay isku qabsadaan fikradooda iyo aqoontooda iyo xoogooda haday mideeyaan Soomaaliya maanta waxay u soo hooy karaan guul Hiiraan waxay ka mid tahay meelaha taariikhiyaasha ah oo halyaayada waddanka soo hogaaminaya ama ku dhashaano ama ku soo barbaaraano meesha fikradaha xoog leh ee ka imaajireen waxa waaye Hiiraan marka waxaan rajeynayaa inay dadkaas gacmaha isqabsadaan gacmo wada jir ay ku shaqeystaan gobolka Hiiraan wuxuu ka mid yahay gobolada ugu dhaqaalaha badan ee dalka marka aad fiirsana dhanka siyaasad ahaan waa gobolka ugu ayaanka daran ee dhanka siyaasadda iyo maamulada ka Cumar Baadiyo ahaan maxay kula tahay siyaasadda Hiiraan waxyaabaha dib uga dhigay gobolada kale waa jirtaa taas run ahaantii waxa uu dhigay Hiiraan aan ku sheegayaa Hiiraan mas'uuliyintooda waxa lagu soo magacaabaa si fudud xilka waa loo qaadaa waxa waa 4 gudoomiye hal sano 4 gudoomiyana marka waxa waa taas waxaan rajeynayaa inay mas'uuliyinta naga sareyso ay u fiirsadaan ay u deeyaan bal ilaa muddo 4 sano qofkaas inuu wax qabo waayo inuu wax qabto inuu mataqaanaa baleenkiisa uu ka soo bixi waayo barnaamijka jiran qof kasta waxa waaye ninkii falaara gadaal ugu taagan waa lagu bedeli doonaa maxaa uu dhimani iyo mataqaanaa nin gadaal laga haysto muxuu qabanaa horta waa waxbo ama gadaal ka cabsanayo yaar free qofkan hal sii diyaan qabaani maanta marka fariinta u diraysid madaxweynaha cusub ee maamulka Hirshabeelle iyo maamulka cusub oo dhawaan uu magacaabay maxay tahay fariinta u diraysid mid koowaad madaxweynaha u dirayo ilaa gudoomiyaha gobolka Tirno 4 sano u kaadiyo maamulka sidiisaba 4 sano u kaadiyo awoodii sarana oo siiyo gudoomiyaha gobolka baleenkiisa haduu la imaaway asaga lagu eedeeyo qofka baleenka uu dhigto haduu ku soo bixi waayo asaga lagu eedeeyo sababtoo ah baleenkii adoo dhigan hadii la yiraahdo soo bax waxa qofka meel dhaca oo ku cabaaraa mid labaad dadweynaha gobolka Hiiraan waxaan ka rajeynayaa maamulka iyo madaxweynahaba inay la shaqeeyaan sababtoo ah dawladda hadaa la shaqeeynin adiga oo adiga lukaad ka gooshid waxa horumar aad gaaraysiin ma jirto qof kasta oo bini'aadan ah waxaan ka codsanayaa oo Hiiraan ku nool ama Hirshabeelle ku nool inay la shaqeeyaan maamulkooda adeegsadaan waxay qaban karaan u qabtaan si hagar la'aan ah haddii xil hayaan iyo haddii sahaan maxamed cabdi waare madaxweynaha Hirshabeelle khibrad badan u leeyahay Hiiraan anaga asiga ICRCS kala soo shaqeynay ma xumalayna inaan u tilmaamin maanta reer beledweyne ama reer Hiiraan uma tilmaamaayay aqoon buuxda waa u leeyahay Hirshabeelle aqoon buuxda u leeyahay labada gobol si fiican oo soo shaqeeyay ilaa fidinta beero u shaqeey jiray maxamed cabdi waare si fiican waa qaanaanay aqoonis buuxa ayuu u leeyahay diyaas barana ma ahayn oo intii burburka dhan waa la dhex joogay oo mas'uuliyad maanta diyaas farana yimid marka waxaan rajeynayaa inuu mataqaanaa kaalintiisa ku soo bixi doono madaxweynaha dadweynahana waxaan ka codsanaa in la shaqeeyaan waa gartay su'aasha ugu dambayso adigoo mahadsan maamulka hadda cusub ee la magacaabay ee Hirshabeelle oo madaxweyne ka yahay Maxamed Cabdi Waare nasleedahay maamulkan cusub ee madaxweyne Maxamed Cabdi Waare wax badan ayuu ka duwanaan doonaa maamulkii hore madaxweyne
cali cabdullaahi cusuble oo ay baarlamaanku xilka ay ka qaadeen kuna eedeeyeen wax qabad la'aan runtii dhan walba waare inuu ugu taqaanaa cali cabdullaahi oo ugu bedelnaana aaminsanahay kow sida dadka loo qanciyo ama mataqaanaa bulshada runtii waxaa la yidhi waxaad siisid qofka waxaad siisid waxaad deeqo hadal $100,000 haddii lagu siiyo oo hadal xun lagu dhaho iyo adoo waxba lagu siiyo hadal fiican yah way kala wanaagsan tahay kolley labada shakhsi xanaaq badan oo cali cabdullaahi waare inuusan lahayn aan wanaynaa wixii impossible waare waxaa isku kala tagtay waa wax aanan impossible ahayn markaa ula timaadid ayaa ku kala tegaysa runtii laakiin wuxuu jecel yahay waare had iyo jeer sida kolley aniga waagii ugu dambeysay oo ICRC aan kala shaqayn jirnay qofka inuu qanciyo oo asigoo qanacsan oo halkaa ka tago ayuu ku dadaali jiray laakiin beryahan dambe siyaasadnimada loo aqaa kolley inay dabeecadiisa isbedeli doonto inay sidiisa ay noqon doonto laakiin waxaa sidaada uu ka bedelnaanaa maamulka ma aada ugu bedelnaanaa sababta ah waare iyo waa ka shaqo badan yahay haddana waxaa waaye madaxweynaha waare caawa barsiis oo qoraa waxbuu sameynaa waa nin shaqo marka waxaan rajeynayaa inuu ka bedelnaa doono insha Allah tacaala assalaamu calaykum guud ahaan daawadayaal waxaan intaa ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii wacyiga bulshada oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaana toddobaadkan barnaamijka martigu ahaa isla markaana aynu ku wareysanaynay gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Cumar Aadan Ibraahim Cumar Baadiyo soo saaraha iyo timinta barnaamijka toddobaadkan waa anigu qaaradilka casa dhanka kaamirada toddobaadkan barnaamijka waxay ka qaabeynayay saaxiibkii Maxamed Yare tan iyo kulantii dambe inta aynu barnaamijkan mid la mid aynu ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sida ay nabadgelyo